Assalaamu calaykum saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxa dunida ka jira dad badan oo muuqaal ahaan kala duwan, laakiin muuqaalkeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa wiilkan yar ee muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaanba ka duwan dadyowa kale. Wiilkan yar waxaa lagu magacaabaa Eli, da'diisu waa 21 sano jir. Marka u horeysa ee aad aragtaan waxaad u maleynaysaan in uu waxoogaa ka duwan yahay dadka ama aanu caadi ahayn, balse inta kuma eka cajaa'ibtiisa oo hooyadii waxay sheegtay inaanu cunin cuntada ay u keento, balse uu jecel yahay inuu tago kaynta oo uu ka soo cuno muuska iyo khudaarta kale ee barta ka baxda. taa waxaa ka sii daran inuu xitaa caleemaha geedka cuno. Dhaqan ahaan waxa uu yeeshay dhaqankii daanyeerada. Hadalka yaraantiisii muu baran, balse dareenkiisa iyo waxa uu rabo waxa uu ku cabiraa erayo shaabahaanba u eg qaabka hadalkii daanyeerada. Run ahaantii maaha arrin sahlan Eli iyo hooyadii inay ku noolaadaan tuuladii ay ka soo jeedeen ee ka midka ah Rwanda. Eli garash ahaan uu ka duwan yahay ilmaha kale amba ilmaha la filka ah. Dhibaatooyin ayaana ka haysta xagga waxbarashada, waanay ku adkaatay inuu tago iskuulka. Umay nixin dadkii deegaankiisa ahaa, isaga iyo hooyadiiba oo badanaaba way ku jeeceysi jireen iyaga oo ku tilmaamaya daanyeer. Waqti kadib Eli wuxuu noqday mid ka baqa dadka. Kaliya ma aha in hab nololeedkiisa bulsho ay saameyn ku yeesheen, balse waa arrin xanuun badan markaad aragto niyad xumada iyo qalbi adayga iyo dadkii oo aan ku naxayn gabi ahaan. Waqtigiisa inta badan ku qaata kaynta. Runtii waxaa la odhan karaa qof walba oo qof kale ku yasa amba ku ciyaara kaliya inaanu sidiisa oo kale ku dhalan, isagaaba shabaha amba u eg xayawaanada. Wax ka badan Eli in loo diirnaxo kuma koobna Eli oo kaliya, sidoo kale hooyadii ayaa mudan ixtiraam gaara. Iyadoo aan la eegayn dhibaatada ay ka marto la dhaqankiisa, haddana waxay ugu yeedhaa hadiyad Ilaahay uga timid. oo run ahaantii Eli ka hor 5 goor ayay uur qaaday hooyadani. Hal mid ka mida xaaladahaas uurka qaadayna kumay guuleysan inay dhasho, balse Eli waxa uu noqday ilmihii ugu horeeyay ee badbaaday si nabadana ku dhashay. Runtii way adag tahay inaad koriso dhallaan yar oo ka duwan carruurta kale. Noloshu mid degan ayay u noqon lahayd hooyadan hadday dadka deegaankeedu fahmi lahaayeen ama garan lahaayeen dhibaatada ay dareemayso hooyadu. Iyada oo ka hadlaysa Eli waxay sheegtay in wiilkeedu marka uu dadka arkaba uu ka cararo, iyaduna wax kale oo ay samayso garan mayso ee way ka daba oradaa. Sababtoo ah waxay tiri haddii aanan sidaas samayn, waxaa laga yaabaa inaan waayo oo iga lumo, mar dambana aan arag oo aanu dib u soo noqon. Inkastoo da'diisu gaartay 21 sano jir, haddana weli kamuu suulin in weli ku jiro la qabsiga nolosha. oo marmar waxaa dhacday in hooyada iyo wiilkuba ordayeen usbuuc 230 kiiloomitir. Waxay xitaa ku qasbanaatay inay samaysato xarig si ay ugu soo qabato wiilkeeda kaynta. Waa arrin xanuunkeeda wadata. Dadku ma dareemi karaan dhibaatada maalin kasta la marto wiilkeeda, haddana si aan caadi ahayn ayay u jeceshahay wiilkeeda. Waqti kasta Allah ayay uga mahadnaqdaa inuu u hadiyeeyay Eli. Wariyaasha qaar ayaa ogaaday xaaladda wiilka yar, waxay ka diyaariyeen barnaamij kana sheekeynayso hooyadu qisada wiilkeeda. Eli waxay sheegtay in dariskeedu ay si wanaagsan ula dhaqmaan oo markasta ay garab taagan yihiin wiilkeeda, si daacad ah ay u ogaadaan xaaladiisa oo ay hubiyaan in uu ka fog yahay kaynta. Waxay siiyaan cuntooyin fara badan oo macaan iyo cabitaano, balse dadka ku ciyaara iyada iyo wiilkeeda ayaa ka badan kuwa caawiya. In badan oo ka mid ah umaba arkaan inuu yahay bani aadam, balse waxay u arkaan xayawaan ay tahay in la fogeeyo, dadkana laga dhex saaro. Dadku xitaa kuma eka jees-jeeska oo kaliya, oo waqtiyada qaar hooyadu waxay sheegtay in dad waaweyn dilaan ama garaacaan ilmaheeda. Waxay tiri markaan arko wiilkayga oo dadka ka waaweyn dileen, waxaanan u qaban karin.
run ahaantii qalbiga ayaan ka ooyaa oo ka xanuunsadaa. Laakiin nasiib wanaag, wareysiga laga qaaday wax badan ayuu ka bedelay nolosha iyo fikirkii laga haystay oo dad badani naxariis ayay u muujiyeen. Ragga wareysiga qaadaya ayaa u istaagay qaadida olole ay ku taageerayaan Eli iyo hooyadii, iyagoona soo ururiyay lacag dhan $1,500. Laakiin arrintu kuma saabsana lacag oo kaliya. Wariyaasha barnaamijka diyaariyay waxay u dan leeyihiin inay bedelaan fikirkii iyo habdhaqankii xumaa iyo inay meesha ka saaraan ku ciyaaristii wiilkan yar ee Eli ee noloshu u urtay iyo hadalka dadka awgi. Waxaa laga yaabaa inaad aaminsan tahay inay xaaladda Eli ay tahay mid gaar ah oo dhif iyo naadir ah oo wax la mid aanay jirin. Sidaa ma aha, balse qoyskan kale ee ku nool waddanka Rwanda dhammaantood ilmahoodu waa sida Eli oo kale. Waalidiintoodu waa dad caadiya oo dabiiciya oo dadka kale kama duwana, balse ilmahooda ayaa koritaan ahaan dib dhacsan oo ka dambeeya ilmaha kale. Inkastoo aanay awood u yeelan tagista iskuulka iyo waxbarashada haybsooca dadka, haddana mustaqbalkooda lama oran karo waa madow. Dhab ahaantii, waalidiinta ilmahani waxay ku wareereen xaaladda taagan. Waxay rabeen inay lacag soo shaqaystaan oo aanay ka nabadgelin. Sidaa daraadeed, way ku adkaatay inay waqti iyo awood u yeeshaan korinta carruurtooda ee ka duwan carruurta kale. Waxayna ku xareeyeen guri muddo 3 sano iyo badh. Balse nasiib wanaag, wariyaasha ayaa ogaaday qisada reerkan, waxayna dooneen inay caawiyaan reerka. Waxayna u direen carruurtii meel loogu talagalay carruurta baahiyaha gaarka qaba ee noocooda kala ah, iyadoo halkaas carruurta lagu barayo akhrinta iyo qoraalka, ayna barayaan dad ku xeel dheer arrimahan. Haddaba, Ilaahay ugu mahad celi sida quruxda badan ee uu ku abuuray.